assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa ramadaanka iyo caafimaadka uu leeyahay. Ramadaanka caafimaadka uu leeyahay cilmi baaris kala duwan oo lagu sameeyey sanadihii 2017, 2018, 2019 ayaa lagu xaqiijiyey faa'iidooyinka caafimaad, balse 2022 caafimaadka uu leeyahay ramadaanka ayaa aad loogu xaqiijiyey, waxaana ka mid ah soonka. Soonka wuxuu nidaamiyaa qaybo ka mid ah hormoonada jirka iyo hidde-sideyaasha unugyada, sidaas darteed wuxuu sahlaa in si fudud unugyada ku kasban karaan cellular repair, yacni way dayactiri karaan unugyada maadaama qofku sooman yahay, meeshaasna ay ka baxayso hormoonadii jirka ama bakteeriyada u keeni jirtay. 2. Soonku wuxuu yareeyaa xeerta caloosha ee fariisata, isagoona kor u qaada burburinta xeerta ee loo yaqaano belly fat metabolism. 3. Soonku wuxuu yareeyaa jaaniska ay ku imaan karto sonkorowga nooca ugu badan ee loo yaqaano NIDDM boqolkiiba 90. 4. Soonku wuxuu yareeyaa maadooyinka sunta ee jirka u sababa duqowga iyo cudurrada maskaxda ku dhaca sida Alzheimer iyo Parkinson oo isku dhex yaaca qofka waayeelka ah ama markii uu xaalad stress galo. 5. Soonku wuxuu yareeyaa khatarta cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididada, isagoona yareeya dhiig-karka hypertension, cholesterol iyo anti-inflammatory markers. 6. Soonku wuxuu bilaabaa shaqo jirka uu ku sifeeyo unugyada, isagoo ka soo saarayo qaybaha halaabay ee loo yaqaano autophagy. 7. Soonku wuxuu burburiyaa unugyada keena kansarka ee unugyada si qaldan ugu tarma, sidaa kadib wuxuu noqon karaa burooyin. Sidoo kale wuxuu yareeyaa saameynta daawada kansarka jirka ku yeelan karto. 8. Soonku wuxuu hagaajiyaa shaqada unugyada maskaxda ay qabtaan, gaar ahaan xasuusta, xifdinta iyo fahanka. 9. Soonku wuxuu ka hortagaa gabowga degdega ah, waxaana daraasad lagu ogaaday in dadka maalin walba sooma 83% ka cimri dheer yihiin dadka caadiga ah. 10. oo ah qodobka ugu dambeeya, soonku wuxuu ka hortagaa caabuqyada inflammationka ah qaarkood, gaar ahaan multiple sclerosis. Fadlan sii gudbi haddii aad ka faa'iidaysatay. Halkan ayuu cashirkeena ku egyahay. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.